waxaa jiray saxaabi la yidhaahdo zaahir binu alxaraam nin reer miyiya buu ahaa oo ashjaciya qabiilada khatafaan la yidhaahdo ka mid ah waxaa nin baadiyaha markuu ka yimaado nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdaan markuu u yimaado had iyo goor ama turfuu sheegi jiray turfadu waa wax nebiga farax geliya oo ka warramo hadyadna wuu keeni jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam uu baadiyaha uga keeno waxaanuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka uu ninkaasi baadiyaha ka yimaadee magaalada yimaado hadhow markuu ambabaxayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ambabixin jiray wixii uu magaalada kaga baxayo ayuu siin jiray markaa si awgeed buu nebigu wuxuu lahaa inna zaahiran baadiyatuna wa naxnu xaadiruun zaahir waa reer miyiga iyaga annaguna magaalo jooggiisii baanu nahy yacni isna waa ninka baadiya noo jooga ee dhaqanku wuxuu iska ahaan jiray dadka baadiyo hadiyadday keenaan subag iyo caano iyo xoolo iyo wixii la mid ah hadhow markay magaalada ka baxayaanna dhar iyo kaba iyo wixii la mida in la siiyo maalin maalma ka miduu yimi zaahir muuqaalkiisa marka la eego waxaa la yidhaahdaa nin foolxun buu ahaa dabeetana magaaladuu yimi isagoo suuqii wax lagu kala iibsanaya joogaoo wax gadaya iibinaya ayuu nebigu xagga dambe kaga yimi calayhi salaatu wasalaam dabeetana isagoo aan arkayn buu dhabarka kaga yimi oo saa u qabtay ma arka zaahir ciddan dhabarka ka timee qabatay man haada arsilnii buu yidhi war waa kuma isii daa buu leeyihi kadibna markuu jalleecay wuxuu arkay inuu nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu isku nabay nebigu markaa intuu saa u qabtay buu wuxuu leeyahay war yaa iga iibsanaya buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man yashtari hada alcabdi buu nebigu war addoonkan yaa iga gadanaya buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam isagoo la kaftamaya addoonkan yaa iga gadanaya zaahir baa markaa hadlayo wuxuu leeyahy yaa rasuula allahi idan wallaahi tajidunii kaasida ilaahay baan ku dhaartay ilaahay rasuulkiisii oo haddaad igadda buu yidhi kaasidku yacni waxa weeyaan waan kugu fadhiisanaya maxaad tidhahdaan tijaaradu markay kaa socon weydo suuq loo waayo aniga cidinay gadan maysa buu leeyahy ninkayga zaahir ah cidi kaa gadan mayso ilaahay rasuulkiisiiyo waa igu baaraysaa ama waa igu fadhiisanaysaa ma layga kaa gadanaya buu leeyahy nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lakin cinda allaahi lasta bikaasid ama anta cinda allaahi qaal xadiidku shamaa'il almuxamadiya buu ku yaallaa waana xadiis saxiixa say culammadu sheegeen wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisa mid baariyaya ama mid aan gadmaynin kama tihid buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadday bini aadamku muuqaalkaaga u arkaan inaad gadmaynin lasta bikaasidin cinda allaahi buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan quruxdu iyo jamaalka iyo muuqaalkan sare alle agtiisa waxa qiimaha ku leh maaha saynu u kala qurux badanna ilaahay uguma kala dhowin saynu u kala cadnahay uguma kala dhowin ilaahay agtiisa wax kalaa qiimo ka leh sida ogeed baa xadiidkii imaamu muslim uu warinayay wuxuu nebigu leeyahy ruba ashcaha madfuucin bilabwaab low aqsama cala allahi laa bara wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ruba litaqliil aw litakhiir ruba ashcaha la arkee mid basaasaysan timihiisa iyo wixiisu aanay feedhnayn ama shanlaysnayn oo basaasaysan oo madfuucin bilabwaab buu nebigu yidhi albaabada aan laga furin yacni waa miskiin ama waa kan la yidhaahdo aan ahayn dadka loo hashhashleeye albaabka loo furo aan ahayn laakiin haddana nebi maxamed muxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam low aqsama cala allaahi la abara hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay wuu u rumaynaya hadduu yidhaha wallaahi saasay noqonaysaa sidii uu u dhaartay baa ilaahay u rumaynaya يعني النبي وحده المامي عليه الصلاة والسلام مركا وحا إذنكو وحكو قيمينيسان دادك كو قدرينيسان إنانو أهين ألا أكتسا وحا وحلقو قدرينيا ساو قد مدى إذن إدوك ألبابك كفرين وموقال كيسا سريانو أهين موقال
dadku ay soo dhaweeyaan ayaa haddana ilaahay agtiisa wuxuu ka gaadhsiisay maqaamka ah hadduu alle ku dhaarto in ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaartiisa uu rumaynayo. yani waxaan leenahay mujtamacii muslimka ahaa markii uu ku dhacay cultural revolution waxay wax ku qiimeynayeen siday wax u arkayeen iyo maadada iyo adduunku qiimuhu la lahaa markuu isbedelay ay noqdeen wax kale waxa bini aadamka lagu qiimeeyaa lagu kala horumariya ee dadku ku baratamayaan markaas bay sameeyeen xadaara aan dunida soo marin, xadaara aan dad kala sarreeya lahayn oo aan isxaqiraynin oo aanu quruxda iyo midabka sare qiimo ka joogin. si awgeed isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam masaa'ilkaasi xoojinaya xadiidka muslima kale waa ka ku tilmaamaya ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum. ilaahay subxaanahu wa tacaala ma eego muuqaalkiinna sida u egtiin ama xooliinna ama waxaa haysataan, walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum. ilaahay wuxuu eegaa quluubtiinna waxa ku jira ee iimaana, ee alla ka cabsiya, ee taqwo ah, ee akhlaaq fiicniya, waxa qalbiga idinkaga jira ee rumaysantiin iyo waxa idinka soo fulaya ee acmaala. waxa idinka soo fulaya camala nooca uu yahay iyo waxa quluubtiinna ku jira kaas baa rabbi qiimeeyaa buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam.